dalkaygow dalkii aan jeclaayow dadkii wuu bismillahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum. waxaan taaganahay koonka magaalada Ceerigaabo ee dhinaca galbeed. halkani waa kaalinta Rirsi. saaka waxaan u baxaynaa safar insha Allah nagu qaadan doona 2 cisho oo aan ku maqnaan doono. hadda wali safarkii baan ku jirnaa. waxaan joognaa goob dhinacii ugu hooseeyay ee beeraha ayaanu ku suganahay. halkan waxaanu ka guranaynaa kaabash fresh runtii. waxaanu ku soconaa ilaa 3 gaari baanu wada soconaa. waan sii soconaynaa safarkeena horeynu sii wadaanaynaa insha Allah. waxaanu soo gaadhnay iminka maax baanu soo gaadhnay. saacaddu waxa weeyaan imsi saacad halkan waxaanu cabaar ka shaahaynaa wata baabuurtii iyo dadkii. halkani waa xarun ama waa maxad, sidoo kale masaajid baa ka dhisan. beerihii bay leedahay. magaca walaal عرفات كورن ماشي نجوي جيدا يو بل هذا كم يتهال كان جدا بل هذا دتك وين وربحي بالحالات لما قالت لي ماشي مال فيعان قران بالقبطة ماشي الجو مال وناكسن قران كدين تنقل دجنا حتى مال فيعان ماشي وناكسن عندي سوكل كرتا سوكل الكاد مري قرانك دحات تنبلا يا دحات تنبلا ما شاء الله ما شاء الله. أيادك سلامنا. أول سعوننا جوري أركتان رنتي وجوري بورت دبده كل شيء أو مركي هوري القضاء وجوري عادو جابن وحكوية لماح رنتي وحنو إيجينا قريبه سكره أيون إيجينا إن شاء الله. سفي عن إن شاء الله ولا صعدة. واحد أركتان إيمينك حلقة بورت هاي حلقة جوري جوي هاي إن شاء الله. dhulkii waxaad aragtaa guriga xaggan inuu nooca ka yahay. runtii waa arrin la yaab leh. safar wanaagsan dhammaan akhyaarta kala duwan. alxamdulilah. halkan culimadii qaar ka mid ah ila socota. halkaa hore xildhibaankii ayaa saaran. laga sii jeestay xildhibaan safarkeena ka waran. aad buu u fiican yahay alxamdulilah. waxaynu maraynaa maax, waxaynu ku soconnaa xiis insha allahu tacaala. aad baynu akhyaarta u salaamaynaa. safar salaama. oo idiin soo ducaynaynaa. noo soo duceeya. allah macakum. oo ah deegaanka dhabqadood ee gobolka Sanaag oo runtii xiis aan wax badan ka fogeyn. waxa inooga hadhay oo kaliya magaalada la yiraahdo Raqas iyo sidoo kale dabadeedna waxa aynu tegaynaa xiis. halkan ayaanu ku yaranasanay. masaajidkan ku yara tukanay. masaajidkan oo ah masaajid qadiimi ah. runtii culimadu halkan waxay ka dhagax dhigeen masaajid kale oo laga dhisi doono. waa dhul aad u qurux badan. waa dhul runtii nasasho fiican. daawasho wanaagsan. arkan doonan dooni ku baahne dayacmeen xuquuqdii. waa galabnimo waqtigu weli waxaanu ku jirnaa safarkeennii aan ku gaadhaynay magaalada xeebeedda xiis. halkan ayaanu yara istaagnay. raqas baanu iminka ka nimi. raqas iyo xiis dhexdoodaan taaganahay. halkaa geedka iga dambeeya raggii caday ayay goosanayaan. cadaygii baa laga goosanaya. waa meelaha dhirta cadaygu ay ku sii harsan tahay runtii laga keeno.
قلبي قيدي لا عاي قلبي قيدي لا عاي waxaan soo gaadhnay iminka xeebta taariikhiga ee xiis xilligu waa galab saacadii 7 subaxnimo ayaanu ka soo baxnay magaalada Ceerigaabo runtii goobtan oo goobta ugu weyn ee aanu hawlaha aanu socono aanu ka bilaabi doono insha Allah aniga iyo culimada ugu wehelisa socdaalkan halkan waxa igu dambeysay muddo ay ka soo wareegtay 6 sano xilligaas oo aan safar ku wehelinayay maayrada Somaliland oo ku shiray magaalada Ceerigaabo waqtigaasna waxa ka soo wareegay 6 sano 6 sano kadib ayaan imi xiis warbixino iyo waraysiyo ku taxalluqa taariikhda faca weyn ee magaalada xeebeedda xiis ayaan ku soo gudbin doonaa bartan maalintii labaad ee safarka yaga oo haatan ah labadii duhurnimo waxaanu ku sugannahay gudmo biyacas oo waxaanu dib u soo marnay wadada dhinaca gudmo biyacas ee Hartiyimi halkan ayaanu cabaar ku sugnaan doonaa dabadeedna waxaanu tagi doonaa Daris ayaanu ka caraabi doonaa oo markaa Ceerigaabo insha Allah maalintii labaad ku laaban doonaa آذان كان دكسناي ويا ذلكيجا الله هذا waxaan joogaa goobta biyo shubka gudmo biyacas runtii sidaad aragtaan waa goobta ugu muuqaalka wanaagsan biyo fresh ayaa halkan ka soo dhacaya ودبك خيري الله ودبك خيري ذلكي goobtan oo aan maanta ku qadaynay isla markaasina maalintii labaad ee safarka iyaga ah muddo ayay nagu qaadatay walina waa joognaa halkan waxaa ku nool caruur da'yara oo xareysa runtii quraanka kariimka ku barata muddo sanad ka horaan imi iyo sanad ka sii horeeyay waa markaygii saddexaad aan halkan imaado safarka iyaga hadda toos waxaan ugu baxaynaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo magaalada Ceerigaabo insha Allah aanu caawa ku hoyan dalkii aan jeclaayo dadkii wuu ku xiisay walla wuu ku xiisay dalkii aan jeclaayo